السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad naga daawanaysaan waa Jana Galafoor official. haddaad nagu cusub tahay subscribe ka like ta share ta commentiga inta buu xaqiina xaasidnimada ma fiicne hal mar noo taabal wax xaasidnimo ma fiicne waa intaas oo saas aad tiraahdo gacantana kaama go'aysa lacagna kugu ma socoto. subscribe ka anaga xasdina noo saara. mawduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan fiirsanayaa xalay baana official oo ka hadlaya nin intuu $50 siiyay soo afkiisa noogu sheego nin intuu $50 siiyay ee dhahay yacni mtaana xasan toob caay walaal ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan idin leeyahay qof bini aadan ah intaad yacni xumaantiisa ama yacni mataqaanaa lugooyadiisa ama dhiiggiisa lacag haddaad ku bixiso bal maalinta yoomil qiyaama xaggee tegay hortaadi maalinta yoomil qiyaama xaggee tegay waxa isweydiin leh yacni baana balbalaar iyo xasan toob waa dad walaalo ah oo soo wada shaqeeyay oo intaas soo bilood ama sanadooyin waxay noqotaba soo wada bariisay waay maanta haddii xasan toob baana balbalaar uu caayo maxaa ka istafiiday ii sheeg bal haddayse xumaan ku kala tagaan waxaa waajib kugu ah inaad isku soo celiso ee yacni walaaltinimada aad ka shaqeyso wanaag aad ka shaqeyso mush inaad yacni mataqaanaa xumaantooda haddana aad sii kala faafiso. midaada kale hadday xumaan ku kala tageen habeenada ka mid ah waxaan fiirsanayay xasan toob oo dhahayo baana balbalaar yacni ha lagu yaaco oo subscribe-ka ha loo saaro hadday xumaan jirto xasan toob ma dhihi lahayn baana balbalaarna ma dhihi lahayn hadday xumaan jirto yacni xasan toob iyo yacni ninka la yiraahdo liibaan shoorla waa walaalahayga ma dhihi lahayn xumaantoodu sheegi lahay caydoodu sheegi lahay wuxuu meesha kaga soo tagay sheegi lahay laakiin anaga hadda waxaa noocad wanaag inay ku soo kala tageen dadkaas waayo baanaaba afkiisa wuxuu ka yiri $50 ayaa nin isiiyay oo wuxuu ugu yiri xasan toob caay bal maxaa ka istifiid walaalo gacali maxaa ka istifiiday ii sheeg bal waxaa ka istifiiday qofku doona ha ahaado ana ma aqaano ilaah baa ilo og ma aqaano laakiin qofka maanta kalaamka ku hadlay baan afkiisa baan xugmin karnaa. marka xasan toob caayaa tiri xasan toob maxaa lagu caayay maxaa uu ka galabsaday yaa qaadi ani maanta qof aan wax ka tabanayo inta u tago ama dad u wata waxaan dhihi karaa bal ninkan walaalkayga ah iyo aniga waxa yacni na dhex yeelo maslaxadeena haddaan qaldanahayna qaladkayga ha la qabto haddaan saxsanahayna saxayda ha la ii saxo laakiin inaan soo boodo iraahdo wax aqliga ka weyn waay aqliga diiday xasan toob caay oo $50 ku bixisay sharaf miyay ku tahay walaal gacali waxba la mucaaradaha la maqlay horta waxaad mucaaradaysid iyo waxa kale ma kala baratay oo ma fiirisay waxa mucaaradaysid iyo waxa kale bal ii sheeg. waxaan idin leeyahay youtuberada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan wanaaga ha laga shaqeeyo xumaanta la iska dhaafo waa shay xaraam ah. ani maanta dad qalad iga gasho waxaan leeyahay wadada ii furan waxay tahay inaan kala garbaxno. waxaa jirtay qofka bini aadamka ah waxaa jirto haddii colaada adi aad qabtid 3 beri ay gaadho rasuulkan subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofka 3 beri ka badan xanaaqo oo colaada qabo naarta Allah ku fogeeyo ya akhi xilliga aad dhimanayso isma ogid ilaah baa og xilliga aad dhimanaysid ilaah baa og laakiin waxa uu qofka ka galabsaday muxuu yahay adoorta ii sheeg. youtuberada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dunida ay ka joogaan waxaan leeyahay wanaaga ha laga shaqeeyo. social media looma furto in dad lagu caayo ama lagu aflagaadeeyo ama wax lagu yaaqay wanaaga ka tare weliga wanaaga ka tare xumaan ha ka tale baana waxaan ku leeyahay walaal curdun baa tahay hadda baa socotaa YouTube baa furatay
qof ha isku dayin qof bini aadan inaad meesha caayatin aad u furatayn ha isku dayin horta bilkuliyam wanaaga ka tale sidaad shalay u ballan qaaday inaadan qof bacayn ku socon ku leeyahay aanan laguma raadiyo qofkaan mucaarada aan wax ku helaa aan yacni fayuus ka raadina horta taas waa qalad yaa risqan ilaaha haayo adi ma haysid qof bini aadan gacantiisa kuma jiro hadaa qof aad maanta mucaarada ama yacni dhib u geysatana ilaah unbaa kaa jaasina adi ilaahay unbaa kaa jaasinaa xasan toob walaalkay waxaan ku leeyahay ha u jixin hana u joojinin horay u soco qofka ku mucaarada asaa haraa asaa degaa aqay waan ogeyn dordor miidihii yani hore meesha ay maraysay iyo sida loo galay waan ogeyn maanta waa taasaa durdurtii labaadaa socoto maasha allah ilaahay inay ziyaadiyo dhalinyaro waxaa tihiin firfircoon dhalinyaro waxaa tihiin yani howshooda yaqaano dantooda yaqaano ayaa tihiin hore u socdaan idin leeyahay baanaa dan usoo laabto baanaa waxaan ku leeyahay qanaadka aad furatay ha u isticmaalin inaad qof bini aadan aad ku dhibaatayso ha u isticmaalin war markaad soo boodo waxaaba mucjiso ila noqotayba youtuber Soomaaliyeed meel walba uu dunida ka joogaa youtuberada Soomaaliyeed ee jooga Muqdisho bal maxaa ayaga isu tusay su'aasha la isweydiin war hadaa maanta ani halqadka aan ka baxo lacagta ani aan helayo adiga ma qaadanaysid laguma daraayo ninkaas lacagtiisa yaa lagaaga soo qaaday adaa lagugu daray laguma dhahayo bal horta u fiirsa bal maskaxdaada raac bal dib isu baarbal adig maxaa ku lugoysay qofka walaalkaaga marka ii sheeg bal maxaa ku lugoysay maxaa ka istafiidi waxaa maqlaayayba in yani xasan toob iyo yani mataqaanaa xayeysiintii lagala laabtay eena ka dambeeyaan dad isu tegay bal maxaa ka istafiidaysiin walaalow gacli maxaa ka istafiidaysiin xasan toob nin walaalkiina ee Soomaaliyeed oo dhaqan iyo diin aa wadaagtaan waay dhaqan iyo diin aa wadaagtaane maxaa intaas u dhibaataynaysiin marka waxaan idin leeyahay walaalayaal iska daaya xumaanta iska daaya youtuber meel walba joogan wax isdhibaatay markas laakiin kuwa Muqdisho joog unbaa dhibaatada laga soo sheegaa waxaa leeyahay reer Muqdisho youtuberada Muqdisho saan waxaas iska daaya waxaas la iska daayo walaalayaal waa wax oonan dhaqan iyo diin intaba aan meel kaga oolin waayo haddii xasan toob caabo uu qadka ka baxo ma riyaalkii ama lacagta isugu helay miyaa adi lagugu ziyaadin ma isweydiisay waa maya walla inaan lagugu ziyaadinayn meeshaad ka miisato unbaad ka qaadanaysaa adi waxaad samaysato unbaad qaadanaysaa laakiin inaad adduunye beel iyo aakhira beel intaba kuma roon walaalkaygaa tahay walaal Soomaaliyeed tahay walaal islaam ha tahay muslim baa tahay kalimadu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ayaana wadaagto iska ilaali inka walaalka aad la goynaysid waa nin muslim oo walaalkaaga ku diin kugu dhaqan waay marka walaal waxaan ku leeyahay intaad la gooyo ka talinaysid ee jidka la gooyada aad marayso raadi wadada toosan ee mustaqiinka ah raadi taas wax ku taraysa adig walaalkayga daawanayow taas wax ku tarayso youtuber Soomaaliyeedow meel walba joogto war muuqaalkan duu inii soo gaaro noo share garay khayr Allah idin siiyo dad nagu cusub tahay subscribe ka noo saar like ta noo saar youtuberada reer Malaysia waxaan idin leeyahay guuleysta waxaa tihiin dad isku duuban dad yacni dantooda og ee danqanay hadduu walaalkooda maanta wax noqdo danqanay ayaa tihiin reer Malaysia guuleystaan idin leeyahay
meel walbood joogtaan guuleysta waana ku mahadsantiin halka aad nagala socotaan waa Janagale 4 official wala subscribe ka noo saar like ta noo saar share ta commentiga intaba waa xaqiini waana mahadsantiin ilaahay waxaan idinkaga baryaa khayr iyo barwaaqo caafimaad iyo bashbash Soomaali meel walba joogto waxaan idin leeyahay nabad ku noolaada Soomaali meel walba joogtaan nabad ku noolaada wadankeena Allah noo hagaajiyo bariisamaadka Allah noogu soo celiyo waana ku mahadsantiin daawashada aadna daawanaysaan wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullahi